السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمها بدن وسلامتين ملك استود دنود دافيد كجوكتان كسو دواد برامج كين أخبارات كأفلام تورك ودن بي برامج كين داوداش قيمها بدن وحا كسو قادن دون دمان شركتها كردو وندن كاسي دالك هندية دين نقطة بولود أم كونفور هندية دمان أخبارات كأوبانتين أيان كسو قادن دون وركينا qodobada barnaamijka daawadayaasha qiimaha badan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalkii ugu weynaa sanadkan dhexmari doona filimada Triple R KGF Chapter 2 inaba caadi ma ahan rikoorada uu dhigay goosgooskii laga soo bandhigay filimka Zarkari Vari Bad Sultan Mahesh Babu hogaamiyaha ka yahay sidoo kale waxaa si hordhac loo ogaaday xilliga la soo bandhigi doono goosgooska filimka Vote Police sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaa ka dhaxeeya meega saaka waqtiga ugu awood badan fanka Hindiga qof kalma Salman Khan Kiara Advani sheeko xiiso badan ayaa laga haynaa daawadayaasha qiimaha badan qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijkeena daawadayaasha qiimaha badan ku maqli doontaa daawadayaasha qiimaha badan intaan gudu gelin barnaamijkeena marka hore ku soo dhawaada channelkeena fadlan haday tahay markii kugu horeysa soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb aan ku bilowno daawadayaasha qiimaha badan qodobkeena koowaad dagaalkii ugu weynaa sanadkan wuxuu dhexmari doonaa labada filim Triple R KGF Chapter 2 daawadayaasha qiimaha badan gudaha dalka Hindiya waxay ka soo kabanayaan feeska saddexaad corona sida daraadeed tiyaatarada inta badan 50% waa la furay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxa la rajayn doonaa bilooyinka soo socda in tiyaatarada 100% albaabada loo balaqay sida daraadeed inta badan feestooyinka gudaha dalka Hindiya ka jir ayaa la si arbaabanaya sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimka lagu magacaabo Triple R waxa director ka SS Rajamouli sidoo kale waxa hogaamiyalka Junior NTR Ram Jaran sidoo kale waxa muuqaal muhiim ah ku leh Ajay Devgan Ali Abad sidoo kale filimkan Triple R waxa director ka ninka lagu magacaabo SS Rajamouli sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Triple R waxa hore loo calaamaday in la daawan doono 23 Oktoobar sanadkan 2021 sidoo kale filimka lagu magacaabo KGF Chapter 2 asna uu diyaarsan yahay sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan waxa warar hordhac si loo ogaado shabakada lagu magacaabo Bollywood Hungama soo daawacaysa in filimkan KGF Chapter 2 la daawan doono bisha Oktoobar dhexdeeda sidoo kale filimkan looma dhigi doono sanadka dambe maxaa yeelay daawadayaasha qiimaha badan feestooyinka ugu waaweyn sanadka dambe bisha Janaayo dhici lahaa waxa isku haystaan aflaam badan sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimkan KGF Chapter 2 wuxuu ku dhici doonaa filimka Triple R sida daraadeed waxa mar dhow lagu dhawaaqi doonaa daawadayaasha qiimaha badan waqti rasmi ah daawan doona filimkan laakiin sida shabakada Bollywood Hungama hadda ay ogaatay filimkan KGF Chapter 2 waxa la daawan doonaa Oktoobar ayaa la daawan doonaa sanadkan 2021 taasna waxay ka dhigan tahay daawadayaasha qiimaha badan waxay isku dhici doonaan filimka Triple R inaba caadi ma iskoorada u dhigay daawadayaasha qiimaha badan filimka Zarkari Vari Bad goosgooska laga soo bandhigay daawadayaasha qiimaha badan Sultan Mahesh Babu markii ku beegan dhalashadiisa filimkii Zarkari Vari Bad ayaa laga soo bandhigay goosgoos sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan goosgooska wuxuu noqday goosgooskii ugu saameynta badnaa sidoo kale 4 saac gudahooda waxa daawatay ku dhawaad 25 milyan daawatay sidoo kale waxa like saartay qof 754,000 oo qof ayaa like saartay sidoo kale waxa aragtay ka dhibatay in ka badan 70,000 oo qof ayaa aragtay ka dhibatay sida daraadeed wuxuu noqday teaserka ugu saameynta badnaa ay reertada ugu soo bandhigaan kama 24 saac ayaa daawatay ku dhawaad 25 milyan sida daraadeed wuxuu noqday teaserkii ugu saameynta badnaa ay soo bandhigaan reertada ugu markaana daawadayaasha qiimaha badan waxa akhbaar niga hayna actorka lagu magacaabo Naga Chaitanya daawadayaasha qiimaha badan jilaagan markii ugu horeysay wuxuu sameyn doonaa filim dhankaasi Bollywood laga leeyahay sidoo kale wuxuu kala soo muuqan doonaa Amir Khan filimkiisa Laal Singh Jala sidoo kale filimkan waxa ku jirta atriishada Kareena Kapoor Khan sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan Naga Chaitanya hadda wuxuu dooskooda filimkan Laal Singh Jala sidoo kale waxa si hordhac loo ogaaday daawadayaasha qiimaha badan in jilaagan uu filimkan ku jiri doono askari meel adag oo xarakeyn doono sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Laal Singh Jala waxa la daawan doonaa Christmas 2021 dhamaadka bisha December sanadkan ayaa la daawan doonaa daawadayaasha qiimaha badan markaan soo qaadano qodob ku saabsan dhankaasi Bollywoodka daawadayaasha qiimaha badan waxa si hordhac loo ogaaday filimka Vote Police waqtiga rasmiga ah soo bandhigi doono goosgooskiisa daawadayaasha qiimaha badan filimkan Vote Police waxa hogaamiyalka ah Saif Ali Khan Arjun Kapoor Jagunal Fernandez iyo Amy Gontam sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan bilooyin kor waxa laga soo bandhigay kartoon u gaar ah jilayaashan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa la ogaaday waqtiga rasmiga ah soo bandhigi doono goosgooskiisa shabakada Bollywood Hungama ayaa ogaatay in goosgooska filimkan la soo bandhigi doono bishan Agost aan ku wada jirno 15 markay ku beegan tahay sidoo kale filimkan waxa laga daawan doonaa online ayaa la daawan doonaa filimkan OTT ayaa lagu soo fasaxi doonaa sidoo kale filimkan waxa iibsatay shirkadda lagu magacaabo Disney Plus Hosta lacag gaaraysa 60 karoor ay ku iibsatay sidoo kale filimkan marka hore wax lagu qarash gareeyay lacag gaaraysa 40 karoor taasoo ka dhiga macaash ahaan 20 karoor inay ka heleen qolyaha iskale filimkan Vote Police waxaan sugnaaba waa goosgooska filimkan daawadayaasha qiimaha badan soo qaadana sheeko xiiso badan Salman Khan iyo Kiara Advani maxaa ka dhaxeeya
daawadayaasha qiimaha badan Kiara Advani markii ugu horeysay fanka Hindiya soo galayso waxay soo gashay dhankaasi Telugu ee ku soo caan baxday sidoo kale filimkeeda ugu horeeyay waxay la sameysay Sultan Mahesh Babu ee la sameysay daawadayaasha qiimaha badan Kiara Advani waxa abto ninka lagu magacaabo Saeed Joffrey waa nin ku weyn Bollywood ka sida daraadeed Kiara Advani markii go'aansatay inay film jilist ku soo biirto waxay taageero weyn ka heshay ninka lagu magacaabo mega starka Salman Khan ee ka heshay daawadayaasha qiimaha badan Kiara Advani waxa eedo ah atriishada lagu magacaabo Shaheen Joffrey qof kale ma aha Salman Khan saaxiibtiisa hore waana gabadha ugu horeysay Salman Khan oo xiriir la sameeyay sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan Salman Khan gabadhan wuxuu ka caawiyay mashaariic kala duwan inay gacanta ku dhigto sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Kiara Advani markii Bollywood ku soo galeysay magaceeda dhabta wuxuu ahaa Alia Advani sida daraadeed Salman Khan ayaa qulatay inay magacan Alia iska bedesho maxaa yeelay magacan waxa uu atriishada lagu magacaabo Alia ba sida daraadeed magacan uma socona inay magac kala baxsato mooyaan sida daraadeed Salman Khan ayaa gabadhan la tiriyay inay la baxdo magaca Kiara Advani sida daraadeed atriishadan waxay qaadatay magaca Kiara sidoo kale waxay mar walba sheegtay in Salman Khan uu ka caawiyay Bollywood iyo fanka Hindi inay saldhigatay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan atriishadan Kiara Advani waxay la shaqeysaa dhammaan shirkadaha kala duwan haday noqoto Telugu haday noqoto Bollywood dhammaan way kala shaqeysaa sida daraadeed mar walba waxay sheegtay in uu garab siiyay mega starka waqtigan ugu wada fanka Hindiya qof kale ma ahan waa Salman Khan daawadayaasha qiimaha badan qodob u gaar ah Saif Ali Khan iyo Kareena Kapoor Khan soo qaadan daawadayaasha qiimaha badan qoyska ama lamaanahan wiilkooda labaad ay magacay u bixiyaan ay shaaca ka qaadan daawadayaasha qiimaha badan Saif Ali Khan iyo Kareena Kapoor Khan wadkooda ugu horeeyay wuxuu dhashtay 20ka December sanadkii 2016 sidoo kale wuxuu ahaa wiilkooda isla markii waxa uu bixiyay magaca Taymur markii magaca Taymur loo bixiyay daawadayaasha qiimaha badan waxay dhaleecaan xooggan kala kulmeen shabakada ka soo baxa dhankaas dalka Hindiya ayagoo xumaan ka faafi maxaa yeelay magacan Taymur waxa la dhihi jiray boqor aad u xaasid ah sida daraadeed dhaleecaan kala xog badan ay lamaanaha la kulmeen sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan lamaanaha ay wiil labaad u dhashtay sanadkan dhexdiisa waa qaasatan bisha February 2021 ay wiil u dhashtay sidoo kale waxay markiiba qariyeen sawirada wiilkooda sidoo kale shaaca maysan ka qaadin wiilka magaciisa sida daraadeed shan bil ka bacda ay hadda shaaca ka qaadeen wiilkooda sidoo kale wiilka waxa loo bixiyay magaca Jahangir ayaa loo bixiyay daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena wararka aflaamta ugu dambeeyeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada barnaamijkan ku soo qaadan qodobka ku soo jiitay comment nagu reer sidoo kale data markii kugu horeysay aad soo boqonayso channelkeena fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan muuqaal qurux badan soo sameeyno sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaan idin ka codsanaa in muuqaalkan aad share dhahdaan maxaa yeelay si saaxiib wanaagsan inagoo kale channelka ugu soo xirmaan sidoo kale aragtidaada comment nagu reer waxa halkaas inagu dhan barnaamijkeena inta qoqolmeena barnaamij la mid ah waa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh